sababaha ay aamusnaantu u tahay xikmad iyo awood. marka aad isku daydo inaad dadka kale hadal ku soo jiidato waxaad isku dhibaysaa hadal tiro badan, waxaadna si tartiib ah u luminaysaa heybadaadii qof ahaanay. haddii aad waxa aad sheegayso uu yahay wax aan micno lahayn, waxaad si toos ah u luminaysaa qiimihii ay dadka kale kuu hayeen. waxaa hubaal ah markasta uu hadalkaagu badan yahay in uu dhacdhacaagu badan yahay. haddaba waa maxay sababtu ay aamusnaantu u tahay xikmad iyo awood? sababta koowaad, haddii uu eraygu afkaagii ka soo baxo dib uguma celin kartid. waa halka ay Soomaalidu ka tiraahdo af daboolani waa dahab. sidaasi darteed waxaa habboon in aan afkeenu xakamayno markaan caraysannahay, gaar ahaan si aanan wax walba ugu hadlin oo aan naftayna u xakamayno. waxaa la yidhaahdaa haddii aad doonayso inaad qof ogaato, ra'yiga uu kaa qabo waa laga caraysiiyaa. xumaan waliba oo uu ku qabo dibadda ayuu u soo saarayaa. sababta labaad, cadowgaaga ka dhig kuwa u baahi qaba macluumaadkaaga. markasta oo macluumaad dheeraad ah laga helo, hadhow adiga ayaa lagu adeegsan karaa in lagugu weeraro ama saaxiibadaadii la idinku kala dilo. sidaa darteed ka digtoonow ereyga afkaaga ka soo baxaya. Soomaalidu waxay tiraa hadal intuu uurkaaga ku jiro ayuu ammaanada yahay. ogowna inta badan in aamusnaantu ay tahay awood. sababta saddexaad, waxaad yeelanaysaa awood aad dadka kale ku cabsi geliso. boqorkii Faransiiska ee Louis wuxuu ahaa qof aamusnaan badan oo aad u afgaaban. ereyga u badan ee uu isticmaali jiray waan arki doonaa. aamusnaantiisa waxay ku beertay dadka ku hareeraysan argagax. markasta uu aamustaankaagu badan yahay, qiimahaagu waa uu kordhaa. si kastaba, aamusnaantu waa xikmad iyo awood, laakiin mararka qaar aysan habboonayn inaad aamusto. waa marka si khalad ah lagu fahmo, inaad cadaysana loo baahan yahay. mararka qaar inaad hadal badan tiraahdo waa lagama maarmaan. waa marka aad tirtirayso saamaynta hadal dadka kale ay sheegeen oo bulshada raad xun ku yeeshay. marka inaad raadkaa tirtirto waa lagama maarmaan.